روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريم. مسلمين تمانت وليبا بشن رمضان iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunka yar ee adduunka lagu sheegay maanta dadka oo dhan ka cabaadsiiyay ka qaylisiiyay labadii isku timaadaba xanuunka bay ka sheekeynaysaa maanta corona virus baa maanta caalamka oo dhan wareeriyo la hadal haya xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuudillaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagalay maayna qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamka oo dhan labadii isku timaada maanta ay ka sheekaysanaysaa xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta sida xanuunka aan u hadal hayno haddaan ilaahay u hadal hayn lahayn oo qur-aanka u akhrisan lahayn oon istikfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn habeenkii ugu horreysay bishani ay bilanaysay waxau nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kahratu lkhayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaya dembiga la laaqanayay ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii ramadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa malaa'ig albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaadiinna waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha keliya ilaahay jala wacala qur-aanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan waa bisha maaragtaane la yidhi waa bishii qur-aankuna uu soo degay waa bisha keliya ee nebigeennu uu yidhi habeen kasta oo bisha ramadaan ka mida buu nebigu yihi waxa uu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkeyga bisha ramadaan fadligay leedahay waa bisha keliya ee nebigu uu yidhi maradatu shayaadiinna waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee qur-aanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yidhi innaa anzalnaahu fii leylati اlqadr tobanka dambana allah ina gaadhsiiye waa bil aada u barakaysan oo xurmaddeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani asawmu junna soonku waxau nebigu ku sheegay fadaa'ilkiisa kadaalika inuu yahay gaashaan asawmu lii wa ana ajzi bihi ilaahayna waa kii lahaa xadiis alqudsi soonka aniga ayaa iskale anigaana addoonkayga ka abaalmarin doona waa bisha uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi saa'imku intuunan afurin waxa uu leeyahay duco la aqbalo waa marka cadaaddu ay sii dhacayso eed afurka u diyaar garoobayso xilligaa ducada waa la aqbalaaye baahidaada ilaahay u sheego soonku waa gaashaan asawmu junna naartuu gaashaan kaaga noqonaya shahawaadkii nafta ayuu gaashaan kaaga noqonaya macaasida ayuu gaashaan kaaga noqonaya xanuunada dakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayay bisha ramadaani ay daweysaa bal dhakhtarada waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yartihiin waxay ku odhanayaan bisha ramadaan baan ugu shaqo yarnahay
nin docteera oo maalin ka hadlaya ayaa yidhi bishii caafimaadkaa timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yidhi wuxuu yidhi bishaa cid noo timaada umaba aragnay buu yidhi dadka bukaanku way yaraadaan waa bishii caafimaadka waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhowaanayey waa bishii dembi dhaafka man saama ramadaana iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi bishaa ninka sooma buu nebigu leeyahay maalin kasta oo bishaa ka mida ninka sooma buu nebigu leeyahay dembigiisii hore o dhan waa loo dhaafaya man saama ramadaan bishaa ramadaan ninka sooma iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkani inuu yahay amar alle xaggiisa ka yimiday ixtisaabna waa maxay ajarka iyo hawaabkana ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay ka abaalmariyo dembigiisii hore oo dhan waa laga dhaafaa buu nebigu uhi calayhi الsalaatu wassalaam man qaama ramadaan iimaanan واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi ninka bishaa ramadaan salaad taraawiixda u kaca buu nebigu leeyahay calayhi الsalaatu wassalaam isagoo ilaahay ku kalsoon oo iimaan qaba واxtisaaban ajar iyo hawaabna ilaahay ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya ajar inuu ka siiyo cibaadada isagana dembigii horay uga dhacay oo dhan baa laga dhaafaa buu nebigu uhi calayhi الsalaatu wassalaam waa bisha uu nebigeennu yidhi calayhi الsalaatu wassalaam haddii midkiin uu afuraayo timir ha ku afuro buu nebigu yihi timir haddii uu timir uu waayana biyaha cad ha ku afuro buu rasuulku yidhi waa shareecadda islaamku waa cajiib labadaana dawaa ku jirta ogow timirta muxuu nebigu timirta u horraysiiyey waxaa la yidhi cuntada ilaahay dhulka uu ka soo saaro oo dhan mid walba fitamiiga ku jirta ayaa timirta o dhan ilaahay ku abuuray baa la yidhi hilibka fitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa wax aliya waxaa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtaan nicam ilaahay bini aadanka uu siiyey cunayaan mid walba gaar ahaan fitamiiga si gaara iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyey baa ilaahay timirta inoo soo dhex geliyey timirtu waa nicmadda muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka o dhan ku gaadhsiiyeen asxaabu muxamed salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waradia allahu canhum ajmaciin markay risaaladda muxamediyada ay xambaarayeen ee adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolina faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo micdada jirhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu ziyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi الsalaatu wassalaam jibriil calayhi الsalaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa ramadaan qur-aanka ay darsi jireen qur-aanka ayay akhrin jireen qur-aanka marka inakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bishaa maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur-aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasat alcilmi aan ku buuxinaa laynaga rabaa habeenkiina salaat alleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinaa laynaga doonaya laba meeloodba shaydaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shaydaanka ayaa dega aqalka madhanna shaydaanka ayaa dega marka qofka muslimkaa la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo oo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaamay tahay bishii qur-aanku uu soo degay qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi الsalaatu wasalaam bisha malakul jibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen
inakuna bisha rabadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan dersino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aada akhridaa si bishaa rabadaan qur-aanka mar aada u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aada akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur-aanka maaragtaane maalin kastana 6 maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bishaa rabadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer cuثmaan bnu cafaan radia allaahu canhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahaydna qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxaa salafu saalix culammadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dembeeyey xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximah اllah ayaa laga sheegay inuu bisha rabadaan 60 jeer qur-aanka uu khatimayay 60 jeer